صاحب سودو إن كلون كان أجلس مجلس محوها يصيدوا كلا قيمه سكورن والله هرت كلون كهذا عنجرايو وأفرنو أفرتنو أنا وحكلا كانوا بالجدود كانوا بالجدود كانوا شيران المر كانوا شيران يول يدهن يول ماذا يحسن واقناعان مركا كورن قيمهان يو سوق جودان سوق جودان هذا قيمه سواء قالي كوري جيران حتى وحالة كل سنة نوعان $7 $6 مركوز ملاقة بطنة وحالة قضايا $2 حتى وحاوصوا به حتى إلى البدية كأسن حتى لو يدي قرب تايو ولي باسي جواب بهذا عيانا أنا كده جري كوي $8 أنا كده جري حتى $2 كذا إلى كورونا نوع والبلس قفك قرب على لوجو كجرا قف وحقولها بستيك يقدك قفنا وحقولها فينجر يقدك قفنا وحقولها فات يقدك قفنا وحقولها سيدس سكوتر مركا كلونك لو جعليا سوق واكي سوق كلونك لو جعليا هاي دتكو دم بجعليين وانا لا يراهدو كينج فيش يومبا waxaana ku xigo jeedarka laakiin labadaas ba horta jeedarka waa laga fiican yahay aad iyo aad loogu fiican yahay jeedarku wuxuu ku fiican yahay keedinta marka la rabo waxaan inuu waqti dheer sii joogo yaa walaal keedinta macnaha in la barafeeyo oo waqti dheer inuu sii joogo camal dadka saasay u qaataan laakiinse waxtar iyo caafimaad wuxuu leeyahay jeedarka yumbaha iyo khashaarka khashaartan waxa weeye coos daaqa kuwa gaduudooda dhuwaaniga sumeenta tartabada coos daaqa allah kuwaasna international way waa badda waxa barimada ku jira noocyadaas way yumbiga ku xigo labadaas waxa ka sii sareeyay doorada bas wax kale ka sareeyay ma jirto doorada oo magaalkeena joogto doorada Soomaaliga ka sameyn aan ku sheegayo oo khashaarta iyo yumbiga nafaqada laga helaayo waxa ku sii dhow doorada malaayka laga helaayo ma jirtaba marka كوران بيرك إيو ودنا هذا يتوسي سوق بيرك ودنا بيرك إيو ودنا بيركاني علوشان إيو ودنا عندك عادي ويرستان مركي أركان تاويك عشعشايان لكن سنفقد أوقفي على تاي أو جرك بين عادن كان أورون خفك دو توالع سيء عاتتو يهي وكبروا بيكرتا بير ملاي علوشي سامر والبلسينا سيد اسكو بدلا عادت أركي سامو دad kan aaday u liitiyaan maxaa yeelay waxay rabaan dadka Soomaalideena waxaan sajalka oo gaalash sameeyaan ay jecel yihiin aaday u jecel yihiin kan oo dalkeena yaalo way ka hor jeedaan hadda taajirada way bateen ma aragtay ebilna ma jirin bajiro jiro caloosh la bararaay iyo cunug yar oo la geynayo koom la gelinayo ma jirinba laakiin dhacdada maanta aan ku jirno waxyaalahaas waxa uu sabab waxyaalahaas sajalka wax walba sajalka la cunaayo dibka waxaasa keenayo in laga hortagaa roon Soomaali weynta waxa idin leeyahay waxaan sajalka oo cunaysaan iska daay hadaad naagatiin ilma arabtiin sajalka iska dhaafa waxaan anaga oo Soomaali yaal hala cuno Soomaali wax yaal hala cuno maan wax wadan shishay laga keenay laga horjeesto yaa walaal waxaas dib weyn waxaan dibka Soomaali haysata dhan oo naagaheen dhalmadooda hoos u dhaceen ilmaha dhimanayaan ilmaha la geenayo isbitaalasha waxa u sabab waxyaalahan oo la cunaayo sajalka sida chipsiga ilaaha kuroon dooradan oo sajalka hase yeeshee waxyaalahan sajalka jumbaha ku jira jumbaha dadka amaanayaan waa dad oo la soo dirsado weeye dadkan ayaga way ka shaqeystaan ayaga ma cunaan dadka hadda oo ku faalinayo jumbaha wallahi billahi ma cunaan way ka shaqeystaan أدي على ما مركل لو كسب بقوم دونا أدي أنا كاي مدعينا أدي على صاحب يال هل من سوادي سيدي موقتا وحاو نوش شيء إن ونها يو بيركا ملايجا وياهي مد مركز فائدة بدن له dadka Soomaaliyeed waxa uu kula taliyay inay aad u isticmaalaan oo ay si joogto ah u cunaan bedelkeeda iska daayaan waxyaabaha qasacadaysan ee banaanka laga keenay maadaama dadka Soomaaliyeed ay aad u jecel yihiin waxyaabaha dalka dibadiisa uga yimaada ayna iska dhaafaan waxa kale uu sheegay beerkii wadnaha malayga hadii la isticmaalo in isbedel weyn ay qofkaas isku dareemi doono
marka la joogteeyo oo kawaanada sida malaayada la yimaado kalluumada hana la isticmaalo aad iyo aad u mahadsantihiin